madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale weerar ku qaaday shanta dawladood ee codka joogtada ah ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Erdogan ayaa sheegay in aayaha iyo talada dadka muslimiinta ah ay lumiyeen shan dawladood oo ka tirsan dawladaha caalamka. hadal uu ka jeedinayay shirka looga hadlayay arrimaha muslimiinta kaas oo ka dhacay magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda Malaysia ayuu hadalkaasi ka sheegay. Erdogan waxa uu yidhi waxay dhameeyeen cimriga aayaha muslimiin fara badan. muslimiinta dunida ku nool waa 1.7 bilyan. waxaa gacanta ku haya shan dawladood oo ka mid ah dawladaha caalamka. waxa uu yidhi Erdogan waxay isku dayaan inayna aamusiyaan. waxaan leenahay Falastiin iyo dhulka muslimiinta Rohingya, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya. waxaan leenahay markasta ay cadaadis ku sameeyaan cod dheer ayaan ku leenahay caalamku shan dawladood wuu ka weyn yahay. ra'iisul wasaaraha Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid yar oo kooban balse ay weynayn doonaan. arrimahan dawlado kooban ayaa si heer sare looga doodi doona. markii afkaarta la isweydaarsado ayaan ballaarin doonaa oon gaarsiin doonaa dawlado fara badan oo muslimka ka mid ah. sidoo kaleeto ma jirto cid aan ka hor taagannahay inay ka qayb galaan. waa shirka dawladaha islaamka. sidoo kale madaxdii hadasha waxaa ka mid ahaa amiirka waddanka Qatar, Amiir Tamim bin Hamad Al Thani. ومن ناحية أخرى يكاد dhanka kale waxaa adkaatay in la ilaashado madax bannaanida waddaneed waxaana ka dambeeya dib u dhac iyo duruufo dhaqaale. sidaas darteed kobocu waa tiir ka mid ah madax bannaanida. من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية. sidoo kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidan yidhi suuragal ma ahan in aan raalli ka ahaano nidaamkan dunida ee dhashay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. sidoo kale in aan 1.7 bilyan aayahooda uga tagno shan dawladood suuragal maaha.